Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal dabadiyo iyo hanba dabadeed midna lama joogo dade uu ka hadlayo Maxamed Cali Ugaas baa ka hadlayo martida in hadalka lagu horeysiyo ayda mar haddaan waqtigiina waa la daalay khudbadahayaga inaanu soo koobno ayuun baa meesha ka waajibay waxa weeyaan run ahaantii annagu aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay qiimo iyo sharaf badanna noo madashan boqoran ee bilan ee aadka loo qiimeeyay ee lagu boqoray ama lagu caleema saaray ama loogu duubay beeldaajiye Maxamed beeldaajiye Ismaaciil beeldaajiye Xaaji Cabdilaahi inaanu ka soo qayb galno inaanu goobjoog ka ahaano Soomaalida dhaqanku siyaasadaynu ku kala soocanahay dhaqanku waa isku mid mana kala soocna ninkii dhaqani meeshu joogan ummadda isaga ismu ah isaga dhaqan ah siyaasiyiinta xoogaa ee degiya inoo samaysto inoo kala qoqobee ummaddu wax weeye ummad walaala oo isku dhaqana oo isku diina waxa weeyaan run ahaantii aad iyo aad baanu idinla qaadanay caana shubka iyo taladu dee waxay ka timaadaa cidda markaa isimka keenta laakiin markuu ka gudbo ummad ama region ama haddii aan laba leeyahay ummado fara badan ayuu u noqdaa isim u noqdaa maanta wuu idinka soo wareegay beeldaajiye Maxamed wuxuuna noqday beeldaajiye qaran mid ardaa ma aha idinku waa keenteen waana idinka dhashay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana idinka guddoonnay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto ayuu ismu yahay ama intayna la jaarkaaba sidaasuna ku shaqaynayaa saasaanu ku garab taaganahay maadaama keenteen oo boqorteen wax la yidhi awr baarqab oo laba qaalmood laga bixiyay dal wanaag faan kuma aha waxa weeyaan runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa beesha Cali Saleebaan iyo qoyska reer beeldaajiye oo isagoo beeldaajiye ugu yar u dooray una gartay inuu yahay ninka ugu habboon ee ciidamada qabta waxaanu halkan ka qayeelnaa maanta ama aanu ka nidhaahno waxa weeyaan waxay noqonayaan dardaaran iyo duco xilku waxa weeyaan saddex weeye waa garasho iyo gudasho iyo isku adeecid waxaan leenahay ilaahay beeldaajiyaha xilka garashadiisa iyo gudashadiisa labadaba ha u fududeeyo isku adeecidana ummaddu madaxda u yahay baa ilaahay inay adeecaan oo aqbalaan ilaahay ha u aqbalo baan leenahay inta haddaan ka gudbo hadal badani meesha ma yaallo waa waqti kulul weeye waxaan u malaynayaa annagu haddaanu nimi oo Somaliland ka nimi waxaan u sidnay beeldaajiye duco iyo inaanu karaamada iyo sharafta meesha taala inuu qaybteeda ka qaadano inaanu gaarsiino jiidiga aanu ka nimi waxaanu kaloo sidnaa oo aanu ku soconay meesha talo qaran baanu ku soconay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu madax ka yahay oo madax dhaqameedadii iyo shacabkiiba ay nagu ogyihiin oo nala ku soo bixiyay run ahaantii niyad sami iyo wanaag ayaanu nimi oo la nimi wuxuu yidhi ninbaa wuxuu dalqahaad la dooyo soo degay dadba wada maqaliye hadda waa maqlayna waa arkayna ciidamo is hor fadhiya madaxweyne Cabdiweli Cali Gaassan uu inala fadhiya waa awowgee waxa weeyaan Muuse Biixi culays baanu ku saaray ragga iyo dhaqanku haddaan nahay xukuumaddiisa in meesha madax dhaqameedka iyo shacabka ummadaha walaalaha waxay uga baahan yihiin inay nabadgelyo yihiin inaanan u baahnayn maanta dagaal iyo rabshad inaan colaad aanay shacbigu aqbali karin lana kala qoqobi karin dhibaatana waanu sheegnay Cabdiwelina waanu la soo xidhiidhnay waanu la hadalnay mid walba halkiisaanu kula hadalnay waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan waxaanu rajaynaynaa madaxweyne Muuse Biixi oo cusub inaanu xukuumaddiisa ku bilcamin
rabshad iyo colaad inaanu ku bilaabin baan u rajaynaynaa nabadgelyo ilaahay inuu ku dhameeyo cabdiweli oo maanta madaxweynaha ummadda tanaana waxaanu rajaynaynaa inuu hadduu soo noqdana nabadgelyo ku soo noqdo oo madaxweyne nabadeed noqdo hadduu tagana madaxweyne nabadeed kaga tago labadubana ay wanaag inoo horseedaan waxaanu kale u soo jeedinaynaa ciidamada in la kala qaado oo maanta uma baahnin ciidamay soo fadhiyaan sababay soo fadhiyaanna ma jirto ciidamada in la kala celiyo ayaanu cid walba u soo jeedinaynaa la kala celiyo la kala qaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u malaynayaa xoogaa buuqa ina galo hadalkuna wuu lumaa haddii buuqa gale maadaama aanu nimi inaanu kelmadayada intaan ka sheegno waxaan u malaynayaa inay wanaagsan tahay hadday nabad tahay hadday wanaag tahayba waxaanu ku hadlaynaana waa nabadgelyo weeyaan waxaan u nimina waa sharaf weeyaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan qabaa beeldaajiyaha ilaahay xilkaa u fududeeyo beeldaajiye anugu haddaan hadlo kollay siyaasadda waan yaro taabtaa abtigay garaad jaamac waxna waan la qabaa inna waan ka yaro fududa oo waan ka yaro dabacsanahay yar oo isimadu iyagay ahaayeen kuwii dalka kan cadowgii iyo gumaystihii kala hadlayay dalkana xukumayay tooska u xukumayay waad la socotaanoo boqor cismaan oo kale talyaaniga way isqabteen suldaan maxamuud cali shire salaadiintii kale annaga ilaa iyo odayaasheedii salaadiinteedii midaan jasiiradaha jaarkaa la geyni ma jirin waxa weeyaan siyaasiyiintu markay waxina ka doonayaanna waxay odhanayaan maanta waxbaanu doonaynaa fadhiga ka soo kac markaynu kursiga fadhiistaanna waxay haddaan siyaasadda ka jooge waxa weeyaan nasteexo iyo wanaag baynu la garab taagannahay wixii wanaaga adayg badanna ku samayn mayno oo adayga badani waxa weeyaan maanta uma baahnin nabadgelyaynu u baahannahay ilaahay beerkeenna burcada isu mariyo soomaaliya meel kastay joogto nabadgelyo iyo barwaaqa hayna siiyo raxmaadka ilaahay haynoo shubo aad iyo aad baan runtii idinka mahad celinaa